Halkan ka salaamaya marka koowaad gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex iyo dhammaan maamulka gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga wadani oo ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka gudoomiyaha garabka haweenka heer gobol gudoomiyaha garabka dhalinyarta xogayaha iyo dhammaan mas'uuliyiinta kale bahda saxaafadda iyo waxaan xidhi salaan gooni u jeedinayaa musharaxiinta xisbiga wadani ee gobolka Maroodi Jeex ee u sharaxan golaha baarlamaanka intiina soo ajiibtay kulankan casho sharafeedka caawa aan anu idinkaga soo codsaday aad baan idinku mahadcelinay wassalaamu calaykum intii haleeli weydayna runtii waxaan waxba ka rajaynayaa in fursado kale oo noocan oo kale aynu u kulmi doono insha Allah aynu heli doono mana noqonayso soo rajaynayo kulankani kii maxaa ugu dambeeyay ee waxaan rajaynayaa inuu horseed u noqdo kulamo badan oo dambe waayo kan laftigiisu wuxuu la taaba qaadayaa kulankii habeenkii dhaweytu gudoomiyuhu xisbigu ahna musharaxa madaxweynaha Cabdiraxmaan oo inoo qabtay dhammaan musharaxiinteena kala duwan ee gobolka iyo gobolada kaleba 28 xubnoodba macnaha iyo ujeedka koobaad ee cashadani kulka koobaad waa isbarasho si aynu isu baranno bacda barashana jeedooyinka kale kulleyba waxa aan runtii jeclaa isbarashadaas inay noqdo mid inoo dhasha tala wadaag afkaar iyo maxay barkay taageeridba maadaama aynu nahay musharaxiin isku duruuf isku xaalad maanta ah kana sharaxan hal xisbi iyo hal gobol oo gobolka Maroodi Jeex oo ah gobolkii ugu ballaadhnaa gobolada Soomaaliya waxba ka qaadeen gobolada kale kolka xamso waan runtii ugu mahadnaqayaa kulkii hore waxaan u soo jeediyay in 28ka musharaxa golaha baarlamaanka intaba in kuna noocan oo kala ku yeelano si laakiin beeska hoose ayaa kulli wax walba laga soo dhisaa talo wanaagsan u soo jeediyay wuxuu horta inteena gobolku Maroodi Jeex kolka hore maxay barkay ma ka duulaa waan ugu mahadcelinayaa idinkana waan ku mahadcelinayaa runtii sida wanaagsaneed u soo ajiibteen waxa kale oo runtii kulankan aan jeclaa in uu ayna noqon inteena nasiibka Ilaahay u siiyo inay golaha tagto xisbiga ku madasho dad isku barta golaha gudihiisa laakiin ay noqono xidhibaano isla sii jaan qaaday oo aqoon isu leh xagaasna maxay barka shaqo wanaagu iyo isku duumaantu ay ka bilaabato kulleyba xisbi baynu nahay xisbigu wuxuu kama maarmo in dadku ay dad isla socdo oo wax walba wadaagaya wax walbana ka wada tashanaya noqdaan taasina kama maaranto in aqoon wanaagsan la isu yeesho waxaan maxay barkay anigu kulleyba filayaa ka maxamed ahaan waxaan ahay musharax idin ka mid ah oo aad u dareemi karaya xaaladda aad ku jirtaan waqti xaadirkan iyo tacabka aad u soo marteen iyo hawsha aad u soo dhabar adeegteen iyo tan laftigeeda hadda socota oo kaar qaadashadii aynu ku jirno 2 cisho ka hadheen insha Allah aan rajaynayo bulshada intii aan qaadanay si wanaagsan labada ayaamood uga faa'iideysan doonto idinkana maxay barkay ay farayo dhammaanteen inaynu labada cisho ka faa'iideysano codkii xisbiga aynu waxay barkay wax ku tar lahayn inaguna aynu ku soo bixi lahayn aynu si wanaagsan uga shaqeysano kulleyba ka maxamed ahaan waan jeclaan lahaa maanta anigoo arki doona insha Allah in arko dhammaantiin musharaxiinta maanta xagan fadhida ee xisbiga iyo kuwa kale aan maxay barkay inala jooginba oo ku guuleystay oo ku soo baxay maxay barkay golahaas asay ahaatee dhammaanteen waxaynu ognahay intii Ilaahay u qoray ayba meesha tagi doonta halka intiina guuleysatana waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwii u horseeda bulshadooda iyo qarankoodaba horumar ballaaran inta guul daraysatana waxa weeyaan guul darrada laftigeedu waa qayb ka mid guusha halka yaan la moraal jabin xisbiga waa xisbigeennii sidaas in xubka xisbiga laga sii qayb ahaado haddii maanta runtii aniga igu xidhnaan lahayd guushiinu rajada guushiinu ay ku xidhnaan lahayd
aniga oo intiina kale intaad guulaysataan anigu aan guulaysan horaan ka aqbal lahaa runtii sababtoo ah waxa qanaacad igu filan lahayd guusha ballaaran ee xisbigu gaadhay tirada badan ee xildhibaanada ugu soo baxay golahaas waxaana runtii rajaynayaa guul iyo gobonimo dhammaantiin waxaa kaloo uga faa'iidaysanayaa fursaddan inaad sii faro ama aan ii soo jeediyo runtii isku duubnaanta xisbiga iyo xisbinimada shayga xisbinimada la yidhaaho isku duubnaantu waa shay u muhiima waayo in yar oo isku afkaar ah ayaa adduunka wax ka bedeli kartaa insha allah waxaan rajaynayaa sidaan ii sheegay kuwii u horseeday inaad noqotaan ummaddeenna horumar iyo guul dhammaantiinna aad baan ku mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay guul iyo gobonimo